الرحمن الرحيم. السلام عليكم. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena xikmadaha oo aynu ka soo xigin doono buugga 7 xikmadood oo qoray Cabdirasaaq Xasan. xikmadeena koowaad: haddii aad doonaysid inaad u noolaatid si dheelitiran, waa inaad noloshaada ka saartid kuwa markay kuu baahdaan ku heli karaa, markaad u baahatana aan heli karin. saaxiibka xun waa sida kaneecada, ma dareemisid ilaa ay ku qaniinto. haddii uu qorshahaagu yahay mid 1 sano ah, waa inaad bariis beertid. haddii uu qorshahaagu yahay 10 sano, waa inaad geed mirood beertid. haddiise qorshahaagu yahay 100 sano, waa inaad dadka wax bartid. kuwa diiradda saaraya qaladaadka luqadda iyagoo iska indhatiraya mawduuca laga hadlayo waxay soo xasuusinayaan xikmaddii Shiinaha ahayd. dayaxa ayaanu tilmaamayaa, doqonkuna waxa uu fiirinayaa farahayga. wax kasta waa qurux badan yihiin markii aan rabno inaan aragno mid qurxoon. fikirkeennana innaga ayaa maamulna. beentu ma qarin karto runta, keliya waxay dib u dhigtaa wakhtigeeda. koobka shaaha si walba oo sonkor ugu dartid ma macaananayo ilaa aad walaaqdid oo aad isku qastid. cilmi walba waad baratidna ma qurxoonaanayo ilaa aad ku shaqaysid oo dhaqan gelisid. loolanka ugu adag waxa uu ka dhexeeyaa deganaanta caqliga iyo degdega qalbiga. in daalka laga cabsado ayaa daal ah, in daalka lagu dul socdaana waa raaxo. waxaa qasab ah in mar un aad guursatid noloshaada, haddii kale waxaad guurka u malayn doontaa waxa ugu fiican inta noloshaada ka dhiman. dhirbaaxadu kuma argagixisaba waxa ku argagixiya waa in dhirbaaxa la sugo. si walba aad wiilkaaga ugu badiso talooyinka, ma qaadanayo wax yar ma ahayne, wuxuuse wax badan ka qaadanayaa ficiladaada. waqtiyadii hore wax marmarsiyo loo raadin jiray ficilada xunxun, maantase wax marmarsiyo loo samaynayaa ficilada wanaagsan. haddii aad ka fiican tahay way ku xastayaan, haddii ay kaa fiican yihiin oo ku yasayaan. dadka wanaagsan waxay yimaadaan markii aan tamarteenna ku dhammayno dadkii xumaa. waa inaad tijaabisaa waxaanan macquul ahayn si aad u aragtid waxa macquulka ah. ninka filaya in ay haweenaydu malaag tahay waa inuu haweenaydu abuuro janno ay ku noolaato, maxaa yeelay malaa'igtu naarta ma degaan. wixii la xaqiijiyo caddayn la'aan waxaa looga hor iman karaa caddayn la'aan. nolosha arday u noqo. xikmaddu waa baadida qofka muslimka ah, waxaana uu ka qaataa meeshuu ku arko. hammaali waxa ugu culus digsi faaruqa oo saaran madaxa miskiin gaajaysan. haddii aad doonaysid inaad saxabka qabsatid abuur cadow dhalanteeda ah oo aan jirin, kadibna iska dhig mid ka badbaadinaya cadowgaas. korukaca caqligu waxau siyaadiyaa welwel, maxaa yeelay dadka ugu badan ee arrimaha ka welwelaa waa aqoon-yahano. geesi noqo oo khataraa wajah, ma jirto wax nolosha ay ku soo kordhiyeen cilmibaarisada isbarbaryaacaya. dhammaantood way kugu qoslayaan maxaa yeelay waad ka duwan tahay. adiguna waad ku qoslaysaa maxaa yeelay waa isku wada eegyihiin. munaafaqa dhabta ah waa kanaan la garanayn khiyaanadiisa, maxaa yeelay si run ah ayuu beenu sheegaa. haddii aanad helin hab ay lacagi kugu soo gasho adigoo sariirtaada jiifa, waxaad noloshaada ku dhammaysan doontaa xamaalinimo. kuwa dhintay waxay xabsi ku yihiin qabriga iyaga oo ka murugoonaya wixii qabyada ka ahaa. kuwa noolna waxay xabsi ku jiraan nolosha iyagoo oo dilaya waxa ay ka murugoonayaan dadka quburaha ku jira. kuwaasna sooma laabanayaan, kuwana kuma cimro qaadanayaan. maalmihii ugu fiicnaa nolosheenna waa xilligii carruurnimo, markaasi oo aynaan ka cabsan jirin inuu qof inaga tago, inuu qof ina dhaawaco, inuu qof ina jeclaado, inaan qof jeclaanno. waxa keliya aynu ka baqi jirnay waa in ciyaarta laynaga qaso, sida loo dhaqmaloodo markay wasaqowdo oo kale baa dembigana looga dhaqaa kuwa toobadda u degdegaa. qof ha u xiisaynay si aad qof kale uga harsatid.